xafiiska madaxweynaha ee dalkani Kenya ayaa lagu eedeeyay inuu si xad dhaaf ah u bixiyay lacagaha dawladda iyadoo warbixino cusub ay muujinayso in cililis ahaan 2.2 milyan maalintii lagu bixiyay adeegyada dabacaad oo kaliya. warbixinta uu soo saaray xafiiska xisbiyada miisaaniyadda qaranka Dr. Margaret Nyangango ayaa lagu sheegay in xafiiska madaxweynaha uu ku qarash geliyay 817 milyan oo adeegyada dabacaad sanadkii miisaaniyadka 2024 ee sanadka 2025. waxaa kale oo xafiiska uu ku bixiyay lacag dhan 1 bilyan oo la taliyaal gaaraya 20 iyadoo qarashaadka kale oo dheeraadka lagu xuseynayihiin 1.9 bilyan oo ku baxday maamulka guud iyo qorsheynta 765 milyan oo lagu bixiyay hoggaanka iyo isku dubidda howlaha dawladda iyo 399 milyan oo lagu dhagactiray guryaha madaxtooyada iyo dhismaha la filayo in markaasi la dhameeyo sanadka 2027. bixintan ayaa imaanaysa xilli ay jiraan caro iyo mudaharaadyo ay hogaaminayaan dhalinyarada Gen Z kuwaasi oo dhaliilaya qarashaadka sare ee dawladda iyo waliba canshuuraha la doonayo in lagu daro miisaaniyadda. Dr. Nyangango ayaa ugu baaqay dawladda inay si dhab ah uga shaqeyso dhimista qarashaadka aan muhiimka ahayn si loo daboolo baahiyaha bulshada iyo yareynta deynta sii kordhaysa ee dalka. xisbiyada miisaaniyadda qaranka ayaa ugu baaqay dawladda inay dib u eegto qarashaadka ayna mudnaanta siiso adeegyada aasaasiga ee bulshada halkii lagu bixin lahaa lacagaha tirooyinka waaweyn ee muhiimka ahayn. dadweynaha iyo hay'adaha danta guud ayaana si weyn ish ugu haya sida dawladda ay ugu jawaabto eedeymahan.